سان وقولك السديدات اللي يرهدوي قولك السديدات إنك نحن ولا دلولية برجع أنا بكون حنا نحن مدلولين halka kooxda dalaalkaasi ma weyneen inta dambe la dalo qolka sideedaad ah waa qol wuxuu ka kooban gudihiisa markaad gasho afar qol iyo afar qol iska soo horjeeda sidoo qolba gudaha ku jira marka qolkan waxa uu maalmihii la keenay ugu horeysay intii aan Nusweel ay qaadin ayaa la geliyay halkan waxaan kula xidhnaa dhowr oday waa kula xidhnaa qolkan waxa galayay laba oday oo la yiraahdo Maxamed Wacdi oo Finland jooga iyo Sheekh Nasri oo laba oday oo raasa laga soo xidhay ah ayaa kan ku xidhnaa kan waxa ku xidhnaa ana ku xidhnaa kan oo marna wax ka horan galay marna kana galayay kan waxa ku xidhnaa Abdullahi Qaasim baa ku xidhnaa Abdullahi Qaasim oo isaguna jijiga laga soo xidhay oo saaxiibka Zuwayna isku raacnay qolkan waxa ku xidhnaa maarayaha imika mass media-ga Cabdirasaaq Caro iyo Cabdi Salaad Cabdiraxmaan Salaad حاجة نروح أقول إن نسوقنا يرغى ورنير ولا يرادو يوسف بدل حاجة نروح أقول إن عبد الصادالة شاكة حاجة نجد عليه وحد على القرآن كان مركز قل كستوى الباب ويحرنيه هاي قل كستوى الباب ويحرنيه هاي مالمي هو رسالة يمد وحنا كي صوار كسان الباب هاكر هاري جد بيرجوليه هالك يردك حير سمارة كام marka dhagax xayar ba markaan imid ba anoo halkan socda ayaa waxaan rabnay injineerka dhisay muxuu dhagax xayar u sameeyay ma moodayn ma garanay sababtu sameeyay waxaan isri waaba lagu turunturaa qofku markuu galayo waxa ay dhici kartaa inuu ku turunturaa ma garanay ujeedadeedu waxa ahayd bal su'aal xiraan inuu tusay waxa ahayd marka la xiro oo albaabka u banaaytiin u banaay marka la xiro su'aalka ma aragtaan inuu darbiga yaraa banaan yahay jeerigaana biyaha la keeni halkaas biyaha laga shubi guriga marka dhagaxan yar waxa loo sameeyay biyo inaan dibadda u bixin oo halka laga shubo albaabkiyo saa u xiran halkaas biyaha laga shubi biyaha waxa la gaarsiinayaa geerkaas u gaari guriga halkaas qulqul buu yahay halka biyaha saa loo bixin baa loo sameeyay marka waan yaabi jiray waxaan markii dambe maalin baa waxa dhacday 30 wiil oo ururka oo la fala soo galiyay أنا أقول لك كذي مركي لقريه الباب كسر لو حلي أيام لو بالله ما تقانا إن بيه لو شو ويلش ولا صوت راعي ولا صوت دلي مركي للصوت دلي وديك بقى السعودي بيه مركي ورا لو شو بالنظيف بقى لكن ما كاركيه صوت عين ببيه مقطع إن يردون ببيه واحد عدو يسبدلين بيجي بقى صوت علي بيجي بقى عصام ولا بيه وعصادين إلا يمخن كي بيه سيدي جوجو بحي مركي دموي مذوب بعدين بيجي هل كان نماكي لو دلي وحكم لها شمبلا يولاكي أحمد خبير وحكم ذا زيمبابوي وحكم ذا اللي يرادو الله مسعود شبرت ميوها وحكم ذا اللي يرادو خضر هذا جاني لمن فرضان أو أركان لفلوها يستيب هالكن سال له ودلي مركب بيها ما يتعلق شو بينا أنا بقول شو غيبة وهالكن كحنا هالكن سمارة تان قريبا بيها سوا وشوا مركب صاع هذا بيه بحل تلاقي حسب بيه وعلنيا قريبا تستقلنا بيه وبحسن ساسا marka waxa loo sameeyay geerasha waxa loo sameeyay in biyo qabad u noqdo ayuu sameeyay biyaha halkan waxa naga soo martay shaaka qosol badan aniga cabd saalo qolkan qolku ku jirna ayaa cabd saalo qayliyay uu cawaaday caawiyo markuu cawaaday waxaan ku warniyaho sootin laama ha nimanka xagga degan adiga u geesisanay maxaa la cawaadaysaa anoo reerkiisii ugu fulaysan ma cawaadeen boolisku wayna dhageysanayeen shaakadii waxa loo geeyay ninkii wadanka haystayo كاسير ولا ينو كاسي أوين ده سيك سلو سمي مرة كان سوليدا استعمالنا واحد أفلا تكسر مرة السوق ساري أفلا تكسر مرة السوق سارة هل كده ما السوق حين إني بسنجي ما لا يمكن مرينا ياه مرة هذه بقى فاسي ما هذه إبراديرو نيوراكسن نكاسي وحكم ذي هاي وليش أسكر توقف في عم حكم ذي هاي ما هذه باللي هذا ويل يويل أبتجي وحاول يبلش عن شرفت كارك وهاينا ويا محبيس عن دبي تشرين دتك قلنا حشري مركز الجراع أيوة متقنا أو بير لحوش تشري وحيابها يريرا متقنا عنتها أما كنين كأحنوك مركز قفك كوبته كنين كأنت صح هذا أيه هوس دتك كين تشرين مركز قفك وناقي سوال الشيء وحني وسوليين مركز أنا لكين تشري حنا لكين تشري سوليين أفراتك السعمر مع المعلنة المهدي وكلاه الله أيوة حد عشرتي إن وأنتو فراها si uu ku soo qaado yiraahdo wax xanuunsanayaan ayuu na soo saari jiray oo na keeni jiray marka walaalayaal haddaan raano askartu wada xumaayeen waa been weeye askar wanaagsan baa jirta
imika wiilka halkaan ku salaamayna oo kale wiil la yidhahdo cali iid oo abti u yahay niman wanaagsan baa jira oo aad iyo aad annaga noo ixtiraami jiray oo dad yacni soomaalinimadu ay ku dheer tahay oo kuwa mataqaanaa naxaya ay ahaayeen inkastoo dulmigii ay ka cabsanayeen haddana laakiin inta yar wax ku tari karaan haddii mar aad qofka aad ka nabad helayso mataqaanaa ishiisa iyo gacantiisa iyo afkiisa waa qof Soomaali ha waayahay sideedaa ku jira bakara ku jiray hay sideedaa horta ninkan ay sideed ku jirtay hay maxaa kaga jirtay sideed anigu sanadii shan laba ku jiray hay sideed sanadii rahmaan rahiim anigu meeshan baan ku caqabadaysnaa nin kale ila caqabadaysnaa oo reer jigjiga ah ninkaasi wuxuu ku eedaysnaa al-shabaab xaqana lagala baxay waa la biceeyay waa la biceeyay macallin bacda qoorta loo galiyay barbari ku jirto waa la jilgilay gurigu biyaa nooga buuxay inta afka la qabtay baa jirikaan biyaa lagu shubay kolka naftii markay qabatay ayuu nin meeshii joogi jiray oo taliyaha xabsiga ka ahaa ayaa xagga iskaga istaagay laba kalena feerahay kaga tumay mid mayd buu naftii baa ka baxday anaa lay garab dhigay anna waa lay biceeyey xagganaa ku jirnay maalinimo maydka ma bixin karnaa layidhi ninkii aniga hadalku igula dardaarmay maca wuxuu ii sheegay qabiilkooga muxuu ku yidhi waxaan ahay nin bartiraan ahay waxaa la yidhi axmed nuur waxaan deganahay jigjiga waxaan ahaa nin ganacsada ah xaggan sidaasaa la ii dilay handaad baxdid war dadka yagii inaan meesha ku dhintay oo ninka hebel la yidhaaho idilay iga gaarsii buu yidhi oo nabarkaa u dhintay hadalkiisi u dambaysay markuu igu agdhimanayay ninkaas xaggani waxaa igula jiroo kala sheekh axmed maayarkii magaalada jigjiga aniga isagaa ku wada jirnay kolkuu ninkii dhintay ee layga saaray waxaanu nagu shubay 7 jirikaan oo xaar ah ayaa xaggan nagu shubay waxa la yidhi sheekh axmed isma taagi karaya saa ha u taagnaado ha yuuqnaado gidaarka hayso adiguna xaarkaa dhex fadhi is-eega labadiin kolkaa meeshani waxa ka jirtay waxa ku dhintoo kala mid kale oromo ah ayaa meesha ku dhintay oon anigu u taagnaa nadartu meeshan horta waa meesha dadka lagu dhibi jiro qolyo badan oo meesha soo gasha hadda way wada joogaanba xaggan waxaa joogi jiray nin ka shaqeeya oo dadka ciqaabi jiray oo ka soo geli jiray korka oo darajo ku qaatay oo dadka xaggan baa intana la seexiyo waatan barti xaggan baana la geli jiray xaggan dalooshaana la gelinayey waxaan nagu shubi jiray xaar xaggan dalooshaana la seexinaya annaku afara xaar baan nagu shubay kolkaa dhibkaasaa meesha ka jirta anu intaasaan uga soo taagnaa ismaaciil aad baad umahadsanta magacaawna jibriil maxamuud masaa ku xukuman tahay madaxa kuniba ma xukunta soo maa waa sax ismaaciil ina bixi waxaan raacaynaa iminka oo bal na tusaya isagoo horna horumaraydahay waxaan iminka dabagelaynaa waa wariyaha sare professionaalka waa mudane ismaaciil ibraahim buurgaabo bal ismaaciiloo maanta taariikh fara badan baanu soo marray taariikh fara badan baa xabsigan ka soo marray waxaan doonayaa inaad bal na soo tusto gurigii aad ku xidhnayd ee u dambeeyey miyaa miskii u horreeyaan tagnaa keen booqanaa maanta halkan waa caqabadii sideedaad wataa waan soo aragnay maskaram ilaa hidhaar baan ku jiray qolkan aan ku jiray waxaa la yidhahdaa 17aad waxaa weeye masaajidkan ayuu dhinaca ka yahay waa qolkii laga sii daayey waa qolkii maalintii gurida aan kaa tegaynay aan joogay waxaa la yidhahdaa 17aad oo ku yaallaa halkan dabadiisa 17aad waxay ahayd meesha laiga yeeray anoo galab casar masaajidka kusoo tukaday ayaan ka baxnay waxaa weeye oo aan kasoo liiga yeeray ninka xeelka yeerada yeeray asxaabteedii qaar baa weli joogto aad baan uga xumahay guuleedo dhalinyaro yar oo weliba dhalinyarada ciidanka ahayd inay weli meesha kusii xiran yihiin oo weliba aan cadaalad ugu soo xukumin ma wada xukunna hadda raggan ma wada xukunna 17aad baa la yidhahdaa waa qolkan sararteedii baan ku geyn sarartii ugu dambeysay la iiga yeeray waa halkan maanta oo kale waxaan u jeedaan waa la qurxiyey waxa loo qurxiyey waad garanaysaa waxa loo qurxiyey halkan ayaan deganaa sararta yarta ah ayaa laiga yeeray sarartan waxaa mararka qaarkood lagu seexanayay 6 qof 2 kore 2 dhexda ah iyo halkan oo daasadaha caanaha nidaha inta la dhigo oo ciid lagu shubo kor loogu qaado 2 hoos galaysay 6 qof ayaa halkan lagu deganaa 200 oo qof ayaa guriga lagu geli jiray iminka maanta waa la qurxiyey maanta macalleer baa lagu xiray maxaa sababta maxaa u malaynaysaa waxa weeye waan dhaqanaa meeshan cilmigeeda sababta loo qurxiyaan ku sheegay waxa loo qurxiyay markii human right imaanayaan markii wafti la rabo xalay oo kale laga shaqeeyay dhalinyaradan xalay si dhalinyarada weydiine maxaa xalay qabateen
أنا حلو معاهم قبل هرت وحنا إمام بنولي المسؤولين غير ديان هاي وين هذا جند يقوليه وحنا حلو أطلع ما فيش قيمة هاي مركو سير إسماعيل وش يقول waxaan kaloo ku sheegay guriga hadda waliba dehagaajintu waa meeshu iska dadiyar tahay marka human rights imaanayaan ee gurigan 200 oo qof lagu geliyo waxa laga qaadi qof walba hal goob laga qaadi day hadda waa human rights Ethiopia waa la hagaajin sandarooyinka lagu xidhi kadib halkan meelahan dahyaa lagu xidhi waxa hadda u jeedo dhalinyarada samaysay wax ma ahan wax ma laga sameeyaa marka nadaafad buu gurigu leeyahay sinasraad buu leeyahay dad farshaxan ku leeyahay kaab buu leeyahay qaab dhismeedkiisa kaaba halkan fuula meelaha ugu darreen ilaaweyn waxa weeye halkan uu kaabaha fuuli 200 oo qof baa halkan saaran guuleedu waa lagu soo istaajinay waxa weeye waxa lagu dhihi waxaan qiimeynaynaa budcadkan weyn ee buur gaaba ah ee wasaan u fadhiya siga xaga ka soo maray haye budcadkan weyn ayaa noo taagan waa ninkii afgambiyey dawladdii waa ninka asagoo dawladda lacagteeda haysta waxa weeye dawladda afgambiyey waxaan ka qiimeynaynaa arrimo isugu jira afgambigii waxaan weydiinaynaa ciidankii ay dawladdu ku afgambinayeen waxaan kaloo weydiinaynaa wuxuu hub hayo waxaan weydiinaynaa hantida uu leeyahay guriga waxaan u sheegayaa dhammaantii inuu ka qayb qaato budcadkan oo la saxo la ciqaabo wara si fiican ustaag awey injura laay baa dhig markaas 200 oo qof ay sayru taagina wala ragixi injura laay burcadka ku socda wariya abdi Allah ku siiyay su'aalaha la weydiin jiray dadku waxa kamid ah hadda nin bay noo tagaan su'aalaha la weydiin waxa kamid ah kow akoon book bangiga meesha yaallo laba jidda dhulka halkay taalo saddex dadka eelkiina ee Facebook isticmaala meesha ku kala looliyeen xaaskaaga gabadhaada habeenimo la soo qaadi fartila doonaa laga qori hantidaada waa la soo qaadi waxa kale isticmaal jiray hooyadaa baa lagu weydiin habartaa baa lagu weydiin eedadaa baa lagu weydiin inaabtidaa baa lagu weydiin waxyaalaha lagu weydiin waxa kamid ah islaamta haddaad istisaxaysid guriga Facebook ku qoraysid islaantaada joogto soo islaantaadu dambiilo ma aha haye ko diidinadi ma hooda dambiilo dhigi karaa haye ayaan ku rafaadayno waxa kamid ah islaantaada kula ogeedo kula qoraysay ma nin raga dhigi kara islaanteeda waxa weeye dambi ka shay ma gelin waxa doontaan haye cabdillah waro waan sida soo ma taagna daawa lagu sii labada dhagood haye wara sinisad gacma dimaro saasa way socota ku soo adan ku sii socota wara sidoo naga joog maxay jawaab dhigida ku xiran bee dhagaan salka ka fadhi lix waxa la bilaabi markii cisha la tukado kowda laga bixi mararka qaarkood markii la SSI maanta sayid ku jirta 9 taw laga bixi subhanallah waxa soo dulmi meeshu ka dhacay wax xabsigan way jiloogaadeen maantina jiloogaadeen si eegana way noo falxumo marka haye imika bal waxaan galeynaa masaajidkan isooyin khatar soo maray وأنا بورجا بسوينا بالوريا بورجا وأنا بسوينا. ما تروح هريسة. هاي. وكا عدير الله بالي. خلاص ما نقول شكر وخود بيسي. هذه أسمع وحي ودن بيسي. خلاص ما نقول شكر. هالكم عن تصدق مساجد يحيالي اللي قصوا بيتي إن ما يرسل. هاي. نفسهم وحلوة بتاعك. هذين تفكير كل حمار عندهم مساجد إلى. تفكير حمار مثلا ولا مساجد دربي يسي. هاي. سببهم لو استعمالتي مساجد لو ما استعمالتي. حتى بور قاوكر. سوى ديو قرحسين أو أف قرحسين أو إنها عم وحبك عارف أو مرايات دي اللي قاعد وأنا ماشي مرايات فوق وجماعة سامبر معنا. يواكم فليتي. وحافظي كلا كلا نيك اللي يلاهنا قول الأسد وحافظي كلا كلا سراجة وحافظي كلا كلا عمد نيك اللي يلاهنا وحافظي كلا كلا هالجن نيك اللي سراج شوكر وقاري كنا كريدي سمعنا فايا جماعة هذا واقع مساجي كريدي وقاري كنا كان مساجد كيوي ماشى ومالنت كليا اللي قلت كان شري مالنت حلقة كليا تعدت قدور كتكونيين بأحد عدي رنا بالي وحن كهرباء كسكن المساجد كاميرا وضد بدن ولا وقع معها جواننا على ركان كتب كجرتا كتب له أورية بكجرتا حالات بكجرتا بري لقى ممنوع ماشي كتاب القرآن كأه
bari la mamnuucay baa jira tafsiirul ahlaamka bari la mamnuucay baa jira asmaada tusbaxyada aawe bari waxaa jira tusbaxyada la mamnuucay tusbaxyadii waxaa ka daran halkan kitaabadan xagaha laga soo aruuriyey guryaha laga soo aruuriyey war xusnul muslim baan isku diiday ilaa hadda saas u rastaysan yihiin waxaan waa kitaab hadda aragtaan haya hal kitaab oo la akhristay si loo keenay ma jiro lama ogolaan lama maqli karaba aniga maya kuwa iska daa kuwa la ururiyay buurka ka sheekaysan loo ururiyay waxaa loo ururiyay waxaa dhacday 2008 waa tii la yiri waxaa kacday jabhadii jabhada markii kacday waxaa wax badan bay galaafatay waxay galaafatay kitaabadan waxaa la yiri janaasa lagu tukaday ninka cabdi leeyaha waxa weeye culumadii oo dhan baa la soo ururiyay kitaabadii oo dhan baa la soo ururiyay hal qof oo ducaysan kara ma jirta leeyahay waxaa xilliga dhacday maxamed anni iyo kooxdiisii in salaada loo diido way joogaan aaw macaana masaajidkan lama soo geli masaajidkan waxaa weeye dhowr qof ayaa ku tukan jirtay ugu yaraan 10 qof ka badan kuma tukan jirin waxaa la isku qiimeyn jiray oo la isku caqabadayn jiray masaajidku galay gudadu kaniisada halkan ku taala yara ku tusi doono kaniisada waa loo fasixi jiray dadka subaxii markii qiimeynta la galo qiimeynta markii aan ku jirno ayagu waxay aadaan kaniisada masaajidkan hal qof ma soo gelin kitaabada halka ku jiro waxa weeye waa kitaabadii ahkaamta ahaa waa kitaabadii fiqiga ahaa waa kitaabadii waxa weeye axaadiista ahaa waa xusn muslimkii iyo ducooyinkii yaryara waa kitaabadii luqada carabiga ee naxwaha laga baranayay wuxuu dhan halkaas lagu ururiyay dhalinyaradii loo haystay al-shabaabka ee jigjiga laga soo xiray waxaa loo diiday inay quraanka akhriyaan maxamed khadar sheekh bustaale dhammaantood waxa weeye quraanka dushii ka akhrinayeen maalintii uu mar dhameynay maxamed khadar soo caqabadii uu la jiro 9 saac habeenimo intuu bilaabo marka ilaa hadda wali way rastaysan yihiin waa sidan ay aragtid kaniisada waxaan ku sheegay waagi anaga sayna lahayn al-ciqaabi masaajidkan rag deganaayo oo markaas u shaqeynayay komishinka marka halka joogay halkana looga soo duulayay halkana laga soo mishimayay buurga waa halka maray nin buu la hadlay asoo gacmaha ku taagayaan arkay ilaahu nasib loo keen buu lahaa kowde kaniisadana wallahi billahi tallahi waa looga soo duceeyay kawar waa dunya weeha marka waxyaabo badan waan u soo joognay marka maanta safarkeenan aan jilwaadeen ku nimid waxa weeye jilwaadeen sidii loo xidhi lahaa weey xiritaan kaliya ma aha dadka joogan inaan meel kale la geynin in dadka la iska sii daayo dadkan waxaan dhiba soo arkay in aan wali ku sii dhaganaano ma aha waa in shacabka Soomaaliyeed ee dalka dibadda jooga waxaan uga mahad celinayaa taageeradii ay ugu garab galeen maalintii aan bilownay ololaha jilwaadeen hal la xiro ee Facebook ka galnay ee igu garab galeen intii igu taageerteen waan u mahad celinayaa intii fikir iyo aaraan ugu taageerteen waan u mahad celinayaa marka maanta intaas noogu eegyahay